tuulada gurmadka waxay dhacdaa koonfurta degmada Kismaayo waxayna u dhaxaysaa deegaanada Yaqraar iyo Cabdilla Biroole. Tuulada gurmadka waxay Kismaayo u jirtaa qiyaas ahaan 45 kiiloomitir. Gurmadka waxaa si weyn loogu xasuustaa laba sheeko oo isbarkan. Tuuladu waxa ay caan ku tahay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka waxaana saameyn ku yeeshay dagaaladii iyo colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka. tuulada gurmadka waxay ahayd hoy diimeed oo ay ku noolaayeen xer badan oo uu hoggaan u ahaa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya Sheekh Cumar Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ahaa culimadii ugu caansanaa Jubbooyinka. Sheekha oo caan ku ahaa fidinta diinta Islaamka ayaa waxa uu soo cilmi doonan jiray arday badan oo isaga iman jiray qaybo ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo imika ka mid noqday ducaada Soomaaliyeed. socdaal aan u galay deegaanka Cabdilla Biroole ayay ii suura gashay sameynta sheekadan waxayna ii ahayd sheeko aan jeclaystay saameynteeda nasiib wanaag. waxaa socdaalka igu wehelinayay laba ka mid ah mas'uuliyiintii dowladda oo xog dheer ka hayay halkanna muddo ku noolaa. ugu horreyn waxaan si aan wax uga baranno deegaankan waxaan wax ka weydiinay wasiirka deegaanka iyo dalxiiska Caydiid Xaashi oo si qoto dheer nooga sheekeeyay deegaanka iyo sheekooyinka uu xambaarsan yahay. waxaan ilaahay la soo gaarsiiyay gurmadka oo Cabdilla Biroole u jirta baan u maleynaya 5 kiiloomitir halkan waqtigii ugu dambeysay 1994 bay ahayd. maanta dhirtu hadda iyo kayntu sida ay tahay aad bay uga badnayd barigaas laakiin hadda wali waxba ka sii jira deegaankii waa la ilaaliyay dhirta muuqata. qoys culimada baa halkan deganaa oo xer bay meesha deganay xertaasa ilaalin jirtay. waa muuqataa deegaanka hadda way ka muuqataa in ay dhulkii la dhawray oo wax badan ay sidoodii yihiin. waxa meesha deganaa wadaad xer baa deganay nin culimo ah wadaad baa deganaa marka magaalo yar bay ahayd sarkaal ma ahayn waxaan ahaa dadkii magaalada deganaa odayaashii magaalada deganaa baan kamid ahaa marka saasaan ku imi insha Allah. sidoo kale waxaa xog kale naga siiyay Cabdullaahi Maxamed Cabdi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo. waxaa la yiraahdaa gurmadka Biroole waxay u jirtaa 5 kiiloomitir magaalada Kismaayo waxay u jirtaa 45 kiiloomitir. tuulada gurmadka la yiraahdo meesha gurmadka waxaa loogu bixiyay dawladda Soomaaliya ayaa waxay sameyn jirtay xoolihii la qaadi jiray iska waxa qosada ee la soo ururin jiray baadiyaha ayaa halka la isugu keeni jiray halka ayaa lagu qaybin jiray magaalooyin kale lagu qaybin jiray ama xoolihii iska waxa qabsa ayaa halka lagu qaybin jiray. marka tuuladan waxaa la yiraahdaa gurmadka 8 ilaa 7 waxaa ku yaala matoor guuxweyn la yiraahdo matoor el riga oo biyo ayaa ku yaala halkan. tuulada siyaasa loogu bixiyay wali dhanka galbeedka naga sii xigtaayo hadda wadadii dhexdeedan taaganahay dhirtooda waa arkaysan dadkii meesha degan waxay ilaaliyaan dhirta ku yaala ku taala inay ilaaliyaan oo aan dhuxul goyn ay ku tala galeen insha Allah taala taariikh ahaan waxay meesha ugu duwan tahay dhirta waaweyn ay dadka ay diideen in dhuxusha laga jaro. intaas kaliya kuma koobna sheekada tuuladan yar waxaa kale oo xero ciidan ay u noqotay ciidamada nabad ilaalinta u joogay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya gaar ahaan ciidamadii Belgiumka kuwaas oo saldhig ka dhigtay tuulada gurmadka. mar kale hay noo sheekeeyaan xilligaas labada mas'uul ee wasiir Caydiid iyo gudoomiye Cabdullaahi. marka 94 waxa garay ciidamadii Belgiumka ee nabad ilaalinta u yimid Soomaaliya saraakiishoodii ugu sarreysay halkan qadan loogu sameeyay oo ay markaas marka xilliyadii waxay ahayd warloodyada iyo waxaas ay jireen halkan markaas xilligaas ay nimanku nabad ilaalin bay u yimaadeen deegaankan markaas soo gaadhnay waqtigii ugu dambeysay aan imaada xilligaas ay maanta iyo waqtigaana loo wajibay kala leedahay laakiin maanta lafteeda waxay dhaantaa deegaamo badan oo maanta jira oo ay dhirtii wax ka xilligii Belgiumkii UNITAF markii ay soo galayaan dhamaan halkan waxaa halka lagu marti qaaday ciidamo Belgium ka tirsan sarkaalkii ugu sareeyay halkan xoolo loo qalay oo xoolaha uu cunay xilligii Morgan insha Allah taala tuuladan waxaa la yiraahdaa waa tuulo facweyn gurmadka la yiraahdaa. xilligan waxay ku jirtaa deegaano amni ah oo ay gacanta ku hayaan Jubbaland waxayna marin u tahay xoolo dhaqatada ku nool inta u dhaxaysa Kismaayo iyo Cabdilla Biroole. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqayd Jubbaland TV tuulada gurmadka.